إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد أيها المسلمون عباد الله، اعلموا أن لله الخلق والأمر كما قال ربنا سبحانه: ألا له الخلق والأمر. وكل مخلوق في هذا الكون آية دالة على وحدانية الله وعلى قدرة الله الباهرة وقوته المعجزة، وآية على أن الله سبحانه وتعالى هو المتصرف في الكون المدبر لشؤون خلقه. أيها المسلمون عباد الله، إلهي baa amarka iyo abuurka labadaba leh. waxaa caalamkan jooga o dhan ilaahay baa abuuray, ilaahay baana subxaanaه wa tacaala maamula. waa war ilaahay uu inoogu sheegay kitaabkiisa: alaa lahu اlkhalqu wاlamru. amar iyo abuurba ilaahay isaga ayaa leh. arrinkaasi ogaado ah idin dhaadhaco, iimaan iyo yaqiin qalbigiina gasho ha noqdo. shay kastoo ka mida makhluuqaadka ilaahay wuxuu calaamad iyo astaan u yahay ilaahay jiritaankiisa. waa daliil tusinaya ilaahay kelinimadiisa, uu la kelin yahay rabbinimo, xaqu u leeyahay cibaado in lagu gooni yeelo. waa daliil tusinaya ilaahay subxaanaه wa tacaala awooddiisa iyo quwada iyo xoogga rabbi subxaanaه wa tacaala uu leeyahay. wa fii kuli shayin lahu aayat tadulu calى anahu waaxidu. shay walba calaamad baa ku jirta lagu cibro qaato oo tusinaysa ilaahay subxaanaه wa tacaala mid keliya inuu yahay. wa min makhluuqaati اllahi اlcadiima addaalati calى cadamaة اllah wa quwatihi wa qudratih wa tafarudihi bitasriifi اlkown الshams wاlqamar. makhluuqaadka ilaahay waa weyn ee daliilka waa ilaahay awooddiisa iyo ilaahay subxaanaه wa tacaala caalamkan inuu kelidii maamulo. waxaa ka mida qoraxda iyo dayaxa. faqad qaala allahu subxaanه: wa min aayaatihi اleyl wالnahaar wالshams wاlqamar laa tasjuduu liلshamsi walaa lilqamar wasjuduu lilahi اladii khalaqahun in kuntum إiyaahu tacbuduun. waxaa ka mid ah makhluuqaadka tusinaya ilaahay kelinimadiisa, jiritaankiisa iyo awooddiisa habeenka iyo maalinta, sidaa nidaamsan isu bedelaya, isu weydaaranaya. manaaficda iyo waxtarka faraha badan ilaahay u geliyey makhluuqaadka waxaa ka mid a qoraxda iyo dayaxa. ilaahay wuxuu yihi subxaanah: qoraxda iyo dayaxa ha u sujuudina. weynidooda iyo quruxdooda iyo waxtarkooda intaad u bogtaan aada la dhacdaan waxaa ka weyn allaha abuuray.
allahaasaa subxaana wa tacaala ka wanaagsan ay makhluuqaadkiisa yihiin allahaasi u sujuuda oo caabuda gaar ahaan marka ay madoobaadaan allaha madoobeeyey allahaasi u tukada qaala allahu subxaanah waashamsu tajrii limustaqarin laha dalika taqdiiru lcasiizi alcaliim ilahay wuxuu tilmaamay qoraxdu inay socoto meeluu ilaahay ugu talagalay inay saldhigato ayay ku socotaa arrinka noocaasi iskama iman allaha subxaana wa tacaala awoodda badan cilmigiisu shay walba u gaadhay jaangooyntiisa ayay ku socotaa ilaahay baa subxaana wa tacaala amarkiisa iyo idankiisa ay ku socotaa mana khilaafto wاlqamara qadarnaahu manaazil xataa caada kalcurjuuni اlqadiim dayaxaasina habeen walba meesha uu fadhiisanayaa waa halkuu ilaahay amray inuu fadhiisto waa halkuu rabbi subxaana wa tacaala u jaangooyey ayuha almuslimuuna cibaad allah waxaa dhacdo ilaahay addoomihiisa u tusiyaa inuu ka xijaabo iftiinka qoraxda iyo dayaxa arrinta noocaasi maaha mid macno la-aan u dhacda bal ilaahay subxaana wa tacaala waa ka fog yahay inuu shay macno la-aan abuuro ama uu qadaro ama uu sharciyeeyo falilaahi subxaana wa tacaala fii khalqihi wa tadbiirihi wa tashriicihi xikamun baaliga ilaahay subxaana wa tacaala abuuristiisa maamulitaankiisa iyo sharciyeyntiisaba xikmado xeel dheer buu ka leeyahay ilaahay subxaana wa tacaala qoraxda iyo dayaxa mararka qaarkood iftiinkooda uu inaga qariyo ujeedooyin uu ka leeyahay oo ku xusan adilada qur-aanka iyo sunnaha ayaa jira oo ay tahay marka ay dhacaan dadka muslimiinta ahi inay ku baraarugaan oo ilaahay subxaana wa tacaala maqaasida iyo ujeedooyinka uu ka leeyahay madoobeyntooda ay xaqiijiyaan faminha ya cibaad allah tanbiihu lcibaad calى cadamati qudrati اllahi wa quwatih waxaa ka mida ujeedooyinka ilaahay addoomaha inuu ku baraarujiyo oo kuwa rumaysanina rumaysnaan ay sii ziyaadsadaan ay rumaysan yihiin ilaahay awooddiisa weyn yaa iftiinka ka qaaday sabab maadi oo la taaban kara arrintaasi ha lahaato yaa sababtaasi u yeelay oo siday u socon jireen qoraxda iyo dayaxu iyo dhulka halkay ka istaagi jireen cidda ka bedeshay ka leexisay waayo amakhluuqun facala dalik ma makhluuq baa sidaasi yeelay marka ay dhacdo se makhluuqaadka o dhami hadday isu tagaan awoodahooda iyo xeeladahooda ay isu geeyaan ma suurtowdaa yaa cibaad allah inay siday ahaayeen ku celiyaan mise waxay sugayaanuun inta allaha khaaliqee maamulaa sidoodii hore uu ugu celinayo ayuha almuslimuuna cibaad allah xikmadaa waxaa ka mida tadkiiru اlcibaadi biwaxdaaniyat اllah wa tafarudihi bitadbiiri اlkown addoomaha in la xusuusiyo ilaahay kelinimadiisa iyo rabbi inuu la keli yahay caalamkan maamulitaankiisa waxna aanay ka dhici karin wuxuu ilaahay doono mooyaane wamaa tashaa'uuna ila an yashaء allah ina allaha kana caliima xakiima yudabiru اlamra min الsamaaءi ilى اlأrض ilahay wuxuu xagga sare ka soo xukumo in baa caalamka intiisa kale ka dhaca ilaahay baa subxaana wa tacaala qoraxda iyo dayaxa maamula waxay inoo muuqdaan markuu ilaahay inoo muujiyo waxay inaga qarsoomaan markuu ilaahay inaga qariyo iftiinkoodu wuxuu inaga xijaabmaa ilaahay subxaana wa tacaala markuu inaga xijaabo qaala allahu subxaanahu wa tacaala alshamsu wاlqamaru bixusbaan xisaab ilaahiya bay ku socdaan iskama socdaan maamulka ilaahay ayuu socodkoodu hoos yimaadaa waxay taasi ina xusuusinaysaa ana lihada اlkowni khaaliqa qaadira mudabira kownkan iyo caalamkan inuu leeyahay
mid abuuray oo maamula oo awood u leh maamulka caalamkan. من الحكم يا عباد الله في كسوف الشمس والقمر تذكير العباد بنعم الله. ujeedooyinka ilaahay u kaleeyo waxaa ka mid ah ilaahay addoomaa inuu xusuusiyo nicmooyinkiisa. fakam min nicmatin naclamuha aw najhaluha fi daw'i الshamsi الواصل إلينا أو في نور القمر المضيء لنا. أيها المسلمون عباد الله، imisaa ku jirta nicmo iftiinka qoraxdeedii rimaadka iyo kulaylka wata iyo iftiinka dayaxee kulaylka ka maran. qaar aynu garanayno oo haddii layna weydiiyo aynu sheegi karno, iyo qaar badan oo jahli iyo aqoon laan aynu kaga sugannahay. nicamkaasuu ilaahayna xusuusinaya. man aladii sakhara lana الshamsa wاlqamar, yaa inoo sakhiray qoraxda iyo dayax si aynu mid walba ugu intifaacno. wasakhara lakum الshamsa wاlqamara daa'ibayn, ilaahay baa idiin sakhiray qoraxda iyo dayax iyagoo kuwa soconaya socodkooda u yahay joogto. wa huwa aladii jacala الshamsa diyaa'a, ilaahay subxaanaه wa tacaala waxa ay ka mid tahay sifaadkiisa iyo afcaashiisa uu ku mutaystay kelidii in la caabudo, tusinaya awoodiisa iyo rabbinimadiisa iyo kelinimadiisa, inuu ka dhigay qoraxda mid le iftiin diirimaadna leh. iftiin wax lagu arko, hadday caalamka ka maqnaan lahayd mugdi buu noqon lahaa. diirimaad bay leedahay, dadku ay ku intifaacaan, duunyadu ku intifaacdo, geeduhu ay ku baxaan, midhuhu ay ku bislaadaan. cudurro badan ilaahay subxaana wa tacaala cidda caalamkan ku nool uu kaga difaaco. wاlqamara nuura, ilaahay waa ka dayaxana ka dhigay nuur iyo iftiin. waqadarahu manaazil, oo meelo uu fadhiisto iyo manaasil u sameeyey. litaclamuu cadada الsiniina wاlxisaab, si aada u ogaataan tirada sanadada. oo dayaxaasi ayaa sanadada iyo xisaabta maalmaha iyo bilahaba lagu gartaa. ma khalaqa allahu dalika ila bاlxaq, ilaahay subxaana wa tacaala macno daro iyo ciyaar uma abuurin, xaq buu ilaahay ku abuuray. xikmad xeel dheerna rabbi subxaana wa tacaala waa ka leeyahay. ayuha almuslimuuna cibaad allah, waad og tihiin haddii dayax baanu inoo soo bixin caalamkani siduu ekaanayo. waad og tihiin haddii qorax baana inoo soo bixin caalamkan muuqaalkii uu siduu noqonayo. ayuha almuslimuuna cibaad allah, ujeedooyinka ilaahay uu ka leeyahay qoraxyo dayax madoobaadka waxaa ka mid ah takhwiifu اlcibaad wa taxdiiruhum min ciqaab illah wa iqaaduhum min algafla. ilaahay addoomihiisuu ku baqogelinaya. rabbi subxaanaه wa tacaala ciqaabkiisa ay ku mutaysteen dembiyada iyo macaasida ay ku jiraan ayuu uga digayaa. rabbi subxaanahu wa tacaala qafladda iyo mooganaanta ayuu ka toosinayaa. garashada ilaahay u leeyihiin buu kor u qaadayaa. iimaankoodu ilaahay subxaanaه wa tacaala ku siyaadinayaa. xusuusnaantooda ilaahay ay xusuusan yihiin iyo yowm alaakhir ayuu rabbi subxaana wa tacaala ugu kordhinaya. laa shaka qoraxda iyo dayax madoobaadku inay yihiin min aayaati illaah, aayaadka ilaahay kownkan iyo caalamkan oo ka muujiya. aayaadkana ilaahay wuxuu sheegay xikmadda ku jirtaa inay tahay addoomaha baqagelintooda. wamaa nursilu biاlaayaati ilaa takhwiifa, wax kaloo ma soo dira buuhi ilaahay calaamadaha addoomaha aanu tusin aanu u muujinayno inaanu ku baqogelinayno mooyaane. u leenahay war shirkiga ka taga, war bidcada ka toobad keena, war macsiyada ka dhex baxo addoome ilaahay oo toosan oo ilaahay adeeca noqda. nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam se bukhaari uu wariyey wakadalika muslim wuxuu yihi markii ay qoraxdu madoobaatay ee dadka qaarkood ay yidhaahdeen waxay u madoobaatay dhimashada inankii ibraahim oo nebiga calayhi salaatu wasalaam awlaadiisa ka mid ahaa, wuxu uhi rasuulku ina ashamsa walqamara aayataani min aayaati illah,
laa yankasifaani limowti axadi walaa lixayaati. qoraxdii iyo dayixu waxay ka mid yihiin makhluuqaadka daliil ilaahay ku tusinaya qof dhimashadii iyo dhalashadii toona uma madoobaadaan. walaakina allaha yukhawifu biha cibaadah, waa aayad ilaahay addoomihiisa uu ku baqogeliyo. wuxuu nebigu calayhi salaatu wasalaam tilmaamay macaasidu inay sababto qorax iyo dayax madoobaadka, waa markay macsiyadu badato inuu ilaahay addoomaha calaamadaa tuso si ay macsiyada uga toobad keenaan. faqaala calayhi salaatu wasalaam fii khudbatihi bacda salaati lkusuuf, nebigu wuxuu yihi khudbaddii u jeediyey salaatu lkusuuf dabadeed: yaa ummata muxamed, ummadda nebi maxamedey, maa min axadi agyaru min allah an yazniya cabduhu aw tazniya amatuhu. ma jiro mid uga qiiro badan, macana uga hinaaso badan inuu addoonkiisu zinaysto ama addoontiisu ay zinaysato. waynu ognahay qofku hadduu addoon leeyaho addoonkiisu uu zaaniyo siduu uga xumaanayo ee arrinta noocaasiya u diidayo, hadduu addoon leeyahay oo waxa ay samaysana kasii daran. ilaahay subxaana watacaala diidmadiisa ayaa kasii daran arrinka noocaasiya uu diidaayo. markaa khudbaddii buu hadalkaa nebigu ku dhex daray suu addoomaha u dareensiiyo macaasida iyo khaladka iyo gefka dhacaya inuu sabab u yahay. walihaada waxaad arkaysaa waktigii nebiga calayhi salaatu wasalaam hal mar bay qoraxdu madoobaatay 23 sannadood oo uu ahaa rasuul daaciyo dadka khayrka ugu yeedhaya. maantana waad aragtaa inta jeera ay madoobaato iyo sida ay isugu dhowdahay. waktigii nebiga calayhi salaatu wasalaam lam yudkar biisnaadin saxiix ana alqamara inkasaf, lama sheegin oo sanad saxiixa kumay soo aroorin 23 sannadood inuu dayaxu madoobaaday. maantana waad arkaysaa siduu isugu dhow yahay. qaala calayhi salaatu wasalaam: yaa ummata muxamed, low taclamuuna maa aclam labakaytum kaiira waladaxiktum qaliila. waxbaa la tusay nebiga calayhi salaatu wasalaam salaatulkusuuf dhexdeeda naartii iyo jannadii lagu tusay oo aada loogu soo dhoweeyey. waxaa dhabtiisa iyo xaqiiqadiisa ogay haddaad ogaan lahaydeen in yar baad qosli lahaydeen, ood baashaali lahaydeen, in badanna waad ooyi lahaydeen idinkoo lafiina u baqaaya. waxaa ka mid a xikamka yaa cibaad allah tadkiiru nnaasi biyowmi alqiyaama, dadka in qiyaamaha la xusuusiyo. oo qoraxdan madoobaanaysa iftiinkeedu inaga qarsoomayo iyo dayaxan madoobaanaya waa muuqaal ka mida muuqaalada qiyaamaha oo musaqara in kooban laynaga tusay. qaala allahu tacaala: faida bariqa albasar wakhasafa alqamar wajumica ashamsu walqamar hakada yakunu lamru ywma alqiyaama. hadihi suuratu shamsi walqamar. dayixu inuu madoobaanayaa buu ilaahay sheegay iftiinkiisa uu tegayo. qoraxdii iyo dayaxana marka dambe laysu geynaayo, naartana labadoodaba in la geynaayo. yaqulu linsaanu yowmaidin ayna almafar. xaaladdu aad bay u adag tahay. mid kastoo gaal madax adag ahaa, munaafiq caniida, caasi ilaahay ka fog, baqiisu aad buu u badanaya. wuxuu odhan doonaa maalinkaas xaggee loo carari karaa talow ee lagu dhuuman karaa? kalaa laa wasar. meel loo cararaa ma jirtiyo meel loo baxsadaa. ilaa rabbika yowmaidin ilmustaqar. ilaahay baa la wada hortegayaa. yunabau linsaanu bima qadama waakhar. qof walba waxaa farta laga saarayaa loo sheegayaa wax allaale iyo wuxuu sameeyey. nabigeeni maxamed calayhi salaatu wasalaam markay qoraxdu madoobaatay aada buu argagaxay, ilaa ay sheegeen saxaabadu rasuulku inuu ka baqday inay qiyaamihii noqoto. qaala abu muusa: khasafat ishamsu faqaama anabiyu fazica. qoraxdaa madoobaatay, nebi maxamed baa kacay isagoo aada u argagaxsan. yakhsha an takuna saaca. rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka baqanayay isbeddelkan weyne caalamka ka dhacay inuu qiyaamihiiba noqdo. halka nebiga calayhi salaatu wasalaam baqaha iyo argagaxu uu ka gaadhay buu saxaabigu inoo fasiray. maada facala rasuulu llah? kamaraduu qaato wuxuu sawiranayay qoraxda madoobaatay, mise wuu daawanayo wuxuu lahaa waa muuqaal qurux badan,
فقام حتى أتى المسجد فقام يصلي بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله في صلاته قط. masaajidku nabigu alayh الsalatu wasalaam u cararay xataa rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam argagaxaya baqaha taagnaa awgii khamiiskii iyo diric dagaalkii birta ka samaysnaabuu isku khalday oo waxaa la arkay in isagoo sitaa diric dagaalkii birta ka samaysnaayo seefaha iyo hubka la isaga dhigayay. rasuulku calayhi الsalatu wasalaam salaad buu galay buu hi aanan arag salaad ka qiyaam dheer, ka rukuuc dheer, ka sujuud dheer, weliga nebi maxamed oo taasoo kala tukanaya ma arag. uma qaala ina hadihi اlaayaat alatii yursil اllah laa takunu limowti axadi walaa lixayaatih walakina allaha yursiluha yukhawifu biha cibaada. kadibna khudbad buu u kacay oo wuxuu yihi aayaadkan iyo calaamadahan ilahay idin tusayo uma yimaadaan qof geeridii iyo qof dhalashadii toona. ilaahay baa soo diro addoomihiisa ku baqogelinaya. maxaa markaa idinla gudboon in quluubtiina baqa uu galo, fazac iyo argagax, deetana xagga ilaahay aada u yaacdaan. faidaa ra'aytu minha shayئa fafzacuu ilى dikrihi wa ducaa'ihi wa istigfaarihi. fii bacdi riwaayaat fasalluu xataa yanjaliya maa bikum. markaad aragtaan qoraxda ama dayaxa oo madoobaaday waxaad u argagaxdaan xagga dikriga ilaahay, xuska ilaahay badiya. salaaddu waa ka mid, ducada ilaahay barya subxaana wa tacaala, ilaahay u toobad keenoo dembi dhaaf weydiista, tukada buu uhi nabigu calayhi salaatu wasalaam ilaa xaaladdu sidii hore ay ku noqonayso. ayuha almuslimuuna cibaad allah, hadihi khamsu xikamin min xikami illahi daahira fi kusuufi الshamsi wاlqamar faاctabiruu biha wata'amaluu fiiha. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. ثم الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المسلمون عباد الله. qoraxyada iyo axmedoobaadku waxay leeyihiin laba sababood. sabab maadi oo la taaban karo, dayaxu inuu madoobaado sida horena culimadu ay kutubta ugu sheegi jireen, culumtan dambe ee juquraafiguna ay tilmaanto, waxaa sabab u ah maadaama iftiinkan uu ka helo qoraxda oo iftiinkii qoraxda uu ka helay dhulka uu ku soo celiyo, inay isaga iyo qoraxdu kala fogaadaan, kadibna iftiinkii qoraxda dhulku uu ka qariyo, deetana dayixu uu noqdo mid wax iftiina aan lahayn oo aan laga helahayn. ilaahay baa sababtaasi abuuray lafteeda. fallahu huwa khaaliqu lasbaab. ilaahay baa abuuray. taasi gaal iyo muslimba way isku waafaqsan yihiin sababta noocaasa. sababta labaad waa sababun sharciyun, waa sabab ay shareecadu sheegtay oo u baahan iimaan iyo yaqiin, rumayn, oo u baahan xikmadda iyo maqsuudka iyo ujeeddada laga leeyahay in dadka muslimiinta ahi ay ka gaadhaan oo ay ka kasbadaan. sababtaasi waa taa lagu sheegay axaadiida inuu ilaahay addoomihiisa uu ku baqogelinayo waxyaabaha si aynu sheegnayna addoomaha lagu xusuusinaayo. sababta sharciga ah dadku waxay ugu qeybsameen saddex. falkufaaru yunkiruunaha, gaaladu way diidan yihiin, waxay ka dhigayaan madaahir abiiciya, muuqaalo caadiya oo wax kaloo ka dambeeya haba yaraatee aanu jirin. walihaada markay dhacdo iyaga waxba uma kordhaan, bal waxaa laga yaabaa inay fisqi iyo xumaan sii kororsadaan. ciyaar bay u dhaqaaqaan iyo sawir iyo waxyaabaha qaarkood in munaasabad looga dhigto, liannahum laa yuuminuuna bisababi sharci, sababta sharciga baanay rumaysnayn. wakadalika almunaafiquun id hum juzء min alkufaar. munaafiqiintuna waa saas oo kale, waayo kitaabka ilaah iyo sunaha nebiga ma rumaysna, waa qeyb kamida gaalada. wاlmu'minuun yuqiruuna bisababi الsharci wayactabiruuna biha wayamtathiluuna
لأوامر رسول الله في هذه الحالة مؤمنين تدبتاه صارت شرعيقا والرميسيين إيمان دم استران وانا كعبر قادريان وحي النبي وامري حالة إلا ييران وييران واسدوا يلي النبي محمد عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام. ومن المؤمنين من هو ضعيف الإيمان مؤمنين توحى كم إذا كو إيمان كود ضعيف يهي والرميسين لكنهم يتهاونون بهذا لضعف إيمانهم ويفضوا يستروح بكما سوق هذا حال كود حويس بدلوا وعملوا ديرادو إلي ما دار ما جرتو سيدي هربا إسقا هايين بإسقا هادان مقاصدي وجهدوينك إلهي وكلها وحكم إذا كما صبحان وما حقيقيان ما أنتنا حالك مسلمين تا إن بدنوا كم يدي والصداس وحيوقاتين إسكتها هاي شيء دينتو هالشيكتين إسكا مظاهر طبيعية مركا لقابك ولا رقميان يعني حال كود وحبك بدلا لا إيمان ولا خشوع ولا تقوى ولا توبة ولا استغفار ولا دعاء ولا صلاة وإذن كوغاها بين كدويد ضيحوا مذوبادي وقت ددك بدن كود ay soo jeedaan buu madoobaday haddana masaajidada tira aad u yar ba ku tukanaysa nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam markiiba xagga masaajidka ayuu carar markay ay qorraxdu madoobaatay waxa taa ka sii daran in dhalinyarta muslimiinta ah laga dhaxelay waliba dhalinyarteena kamida kuwa arrinka ay waajibka tahay in la rumeeyo oo laga argagaxo laga baqo wuxuu nabi maxamed yiri sameeyo la sameeyo kuwa jees ka dhigta oo meelahaas ku soo qora waad waxa u faaftay dhalinyarta qaar kood waxa magacaabi maayo qoraalay meelaha soo dhigeen way leeyihiin xalay hargeysa in la saxo suurtagal ma yahayn dayaxa madoobaade dabeetana salaad baa la bilaabay dadkaasi waxay ilowsay waa kuwa tukanaya inay arintani qurux tahay dayaxan madoobaade macna dad way argagaxeen dabeetana xagga salaada u yaaceen waxay ilaabeen arintani inay qurux tahay dadkii markaa jaarkoodana dhibaato inay ku tahay macna salaadan iyo quraankan baxaya iyo dhalinyartaasi anigu halkan maanta waan uga nasteexaynaya iyaguna nasteexaha u qaataan ceebayna ma aha ujeedo kalena ma aha inaha nasihatu lillah waxaan leeyahay idinma habboona idinmana banaana iyadoo islaamnimo laydinku dhalay dhul islaamna aad joogtaan in mar walba idinka soo fulaan erayo diinta islaamka liddi ku ah ama wax diinta inuu ka mid yahay la huboon la isku khilaafsanayn jees aad ku jeesjeesiseen ah arrintaas oo inay gaalnimo tahay culamaa islaam ay isku waafaqsan yihiin ilaahay kitaabkiisana ku xusan qul billahi wa ayati wa rasuuli kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da iimanikum ma ilaahay ma ayatkiisa ma rasuulkiisa aad ku jeesjeesisaan nabi maxamed baa argagaxay oo baqa badani ka muuqday nabi maxamed baa calayhi salaatu wasalaam tilmaamay salaada in lagu argagaxo oo lagu naxo markay xaaladaas dhacdo taasa wax la isku ceebeeyo ah sidee loo odhan karaa waa muuqaal qurux badan shaygii ilaahay uu addoomaa inuu ku baqa geliyo uu doonayo baqaaba yaalee qurux halkay taalla oo nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu leeyahay ولكن الله يخوف به ما عباده وحلا إذن كفر يا دليروي إلهي دينتي سيناد النصري سند قرب استاكتا وانا واجب دي صارا انت اودي انه هيتاي اقوانات يحب لكن إلهي دينتي سوح لدي وكواينات سميسانات كودا قاقدان اما اتكو هذا الشان ووحاران إذن كا عيبنا إذن كوا خسارنا إذن كوا الدنيا انت تشوكتاني هديدا كتوبت كانين آخرة إلهي كبغض سبحانه وتعالى waxaad aqoon u leedihiin ka hadla idinkoo waliba ku miisaamaya shariicada islaamka ilaahay diintiisa wixii aydan aqoon u lahayn ha ka hadlina weydiiya cidda aqoonta u leh sida ilaahay uri fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun
haddaad garanaysaana ha ku jeesjeesina waa sifo aad iyo aada u xun oo ilaahay halka uu gaadhsiiyey aynu ogsoonnahay cid kastoo hadallada noocaasiya ku hadashay qortay taageertay ciddii ku hadashay ku hambalyaysay difaacday waajib waxaa ku inay ilaahay u toobad keenaan intaanay dembigaa weyn ku dhiman nadcuuhum ila tawbati ila allah waxaynu ugu baaqaynaa inay ilaahay u toobad keenaan ilaahay raxmaddiisay ka mid tahay inuu baabu tawba u furay oo hadalkaa xun ay ka murugoodaan weliba towbadoodu ay calani noqoto si muuqata maadaama hadalkaa xumi uu faafay lagana yaabo dadka qaarkooda muslimiina inuu fitno ku noqdo diinta ilaahay uu ka fitneeyo oo wax ilaahay uu weyneeyey inay fududaystaan sabab uu ugu noqdo si calaniya sida marka horeba hadallada xuni ay u baaheen hadalka wanaagsan ee toobadkeenkaahina waa inuu baaho towbaduna waa sharaf ilaahay baa idinku jeclaanaya in allaha yuxibu tawaabiin wa yuxibu lmutatahiriin ilaahay baana qadarkiina kor u qaadaya haddaad si dhabo runa ilaahay aada ugu toobad keentaan towbad shuruuddeeda dhamaystiratay waxaan leeyahay oon ugu baaqayaa dhalinyarteenna maanta taasoo qura maaha aada bay u badayen hadallada noocaasi ah ciddii la socotaa way la socotaa hadallada jees-jeeska diinta ku saabsan ama ka hor imaanshaha qofku qodob diinta ka mida si toosa uga hor imanaya u caaridaayo ama qofka oo had iyo jeeraale duraaya dadka ahlulcilmiga iyo ahlulkhayrka ee dadka diinta u taagan iyadoo maqsuudku uu yahay diinta ilaahay subxaana wa tacaala iyo dadka in la kala teedo oo gidaar iyo xijaab weyn loo dhexaysiiyo waxaan le ilaahay subxana wa tacaala ka baqa cumriga adduunyadu aada buu u kooban yahay haddii adduunya idin fitnaysayna ilaahay subxaana wa tacaala ayaa risqiga bixiya ilaahay baana fadligiisu uu waasic yahay ballanqaadkiisuna uu run yahay الشhayطaan yacidukum الfqr وyaamurukum bاlfaxshاء wallahu yacidukum makfirata minhu wafadla wallahu waasicun caliim geeridu waa soo dhowdahay u diyaar garooba dhalanteedkan adduunyo iyo dhalinyaronimadiina iyo quruxdiina iyo aqoonta aada isbidaysaan yaana ilaahay iyo aakhira idin ilowsiin sida ilaahay subxana wa tacala uhi falaa taguranakum alxayaaةu اdunya walaa yaguranakum biاllahi اlgaruur allahuma rabbana atina fi اdunya xasana wafi اlaakhirati xasana waqina cadaab الnar allahuma صli calى nabiyina mxamed wعalى ali nabiyina mxamed kama صlayta calى ibrahim wعalى ali ibrahim wbarik calى mxamedi wعalى ali mxamed kama baarakta calى ibrahim wعalى ali ibrahima fi اlcaalamiina inaka xamiid majid